geed dheer iyo geed gaaban waxay u koraysaa waa Soomaalida qaar geed dheer iyo geed gaaban bay waxay u korayaan si un loo yiraahdo maalin waa laandheerata si un loo yiraahdo ba wuxuu u korayaa geed dheer iyo geed gaaban hadduu rabo waxbuu u dili hadduu rabo waxbuu u dhaawici hadduu rabo waxbuu u dhici yacni wax kastuu san hadduu rabo waxbuu kufsan wadankan waa laandheera ah ninkii wax dilo ninkii ummad cuno ninkii dad laandheera ah jareer weyn laga heli karaa saas mid kale waxaan istaagaynaa maalin ilaahay keen intaan dhahno ilaahay waa jooga ayakuna waa u jooga anakana waa noo jooga ha noqonina kuwa idinku wax dila ha noqonine kuwa la dilo noqda kan wax dhaca ha noqonine kan la dhaco noqo kan wax kufsada ha noqonine kan la kufsanayo noqo saasay xikmadu saxda keenaysaa ilaahay wuxuuna dhahay xaqaaga dhacso wuxuu ilaahay aqli ku sii ad xayawaan matid xoolana matid anaka yaan noqon sidii duur joogta ah kan markii la cunaayo waan daawanaynaa kan kale markii la cunaayo kii kala loo socda taas hurdada ha laga kaco waxaan leeyahay jareer hurdada ha laga kaco haddaan dhiig daadanin ma huba aniga intaan wax helayno dumar yacni xil loo dhiibtay ma liibaaniyaan oo liibaan ma gaarsiiyaan qoomkii xilka u dhiibtay maxay leeyihiin ilka yar waa boon waay ma guursano ayaga dhexdooda waa ilka yar waa boon waay majamakoos waay waxa waay waxaan leenahay jareer ha qaaday aka sabrin u dhimo يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولليال إلهي سبحانه وتعالى مركي ونابوريي رقي الضمر بو إلهي تبارك وتعالى إنك إهيسيي كدبنا إلهي تبارك وتعالى شعوب يا قبائل أي إلهي تبارك وتعالى إنك قدقي حكمة دي سنة وحويان لتعارفوا إن أد إسقرتان أو أد إسبرتان إسبرتان إذنكو مركاسي بحسو إن أد إسحريرسان مدبا مدك كلنا أو كالقرطو يا والد يو قرسن كرا يو سن قرسن كرين يا جيا يا سنجينين قفك سلاس يا لقدون يا إن أو وحوك لبرطو إلهي وحيد تبارك وتعالى ورددو أنقو وحايدن كأبورني لب يددك وجعلناكم شعوبا شعوب بان إذن كدقني شعوبك وشعبيات إسو تكتي واي إيا سيدو كلا وقبائل قبيلوين يعني شعوب تاسي وحي أكلا بحيان قبيلوين بي أكلا بحيان إن أكرمكم عند الله أتقاكم كينا أغو كرامة بدن كينا أغو ونكسن كينا أغو خير كبدن كينا أغو لاندريسن وأتقاكم كان أغو عبسيد بدن واي متكينا إلهي تبارك وتعالى كبق يوي بر إلهي تبارك وتعالى ولا ليال عزيga iyo sharaftu badnaanshiyaha ma aha ciziga iyo sharaftu yaani waxa weeyaan qabiilada ma aha ama qabiilaysigu ma aha ama qabyaaladu ma aha ciziga iyo sharaftu xooluhu ma aha waxaad arkaysaa walaalayaal waayadan adduunkan aan joogno khaasatan wadanka aynu ku noolnahay oo ah wadanka Soomaaliya in ay ka jirto waxyaabihii ummadihii inaga horeeyay halaajiyay waxyaabo ay ka gudbeen ummado badan oo maanta aan la noolnahay waxaana wax kale ma aha waa qabyaalada waay iyo qabiilaysiga qabyaalada iyo qabiilaysigu waa waxay diinteenu diiday waay waxaynan diinteena ogoleen way qabiilku ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala soo dejiyay maslaxada loo soo dejiyayna waxa weeye waa litacaarafu waay isbarta oo isgarta litacaarafu ha u isticmaalin waxyaabo kale ha u isticmaalin dhanka guurka yuusan kaa saamaynin dhanka dhaqanka yuu kaa saamaynin dhanka yacni waxa weeyaan bulsheed yuusan naga saamaynin litacaarafu oo litacaarafu macnaheedu ma noqonayso qabiilka kiisa laandheerahana garta kan langaabka ahna garta macnaheedu maaha ee litacaarafu macnihiisu waxa weeye qabiilkaas ilaahay sameeyey subxaanahu wa tacaala yaa la doonayaa inay yacni wax weyn isu bartaan le qabiilku waa kala baxaya mid baa adeerka ah mid baa abtiga ah midaad guursan kartaa midaadan geynaynin guursan karin waxaa la doonayaa marka inaad kala garato oo aad sidaa u kala barato marka qabiilka sidaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u sameeyey ma aha marka sida hadda Soomaalidu ay sameeyaan qabiilku in loo isticmaalo si ka duwan sida ilaahay u soo dejiyay subxaanahu wa tacaala
in markaasi dadka lagu kala sooco ama laisku kala sooco oo dadka intooda qaarna la yidhaahdo waa qabiilkii laangaabka ahaa, inta dadka qaarkoodna la yidhaahdo waa qabiilkii markaasi laandheeraha ahaa oo markaasi xuquuqda lahaa oo wax kastaay asaga uu lahaa oo xil kastaay oo fiican asaga loo dhiibanayay inaan la dhihin wey, oo la yidhaahdo dee qabiilku isbarasho waagiisa horeba asal ahaanba ilaahay u soo dejiye isbarasho un ha naga ahaado. qofkana qiimaynta la qiimaynayo ama shaqadiisa lagu qiimaynayo ama shakhsiyadiisa lagu qiimaynayo ama arrimo guur markay yimaadaan lagu qiimaynayo ha noqoto qofkaasi muxuu yahay, qofkaasi muxuu yaqaanaa, qofkaasi yacni waxa weye qiimo intee la eg buu ilaahay agtiisa ku leeyahay. dad baan arkaynaa maanta oo siyaasiyiin aan ku tilmaamnay ama siyaasiyiin aan ku sheegnay ama kuwoodii cuqaasha ahay annaga aan ku sheeganay in ay markaasi bilaabaan heebsoocii iyo markaasi qabiilaysigii iyo qabyaaladii ay ku kala qoqobayaan muxuu ahaa qabaa'ilka Soomaaliyeed, halka dadka qaarkoodna ayaga laftirkooda ah kuwa markaasi bulshada inteeda kale muxuu ahaa ay wax un ku sheegayso ama ay dhahayso waa laangaab ay dhahayso ama xaalad kale ay ku sheegayso ay dulminayso, yaa ayaguna dulmiga la dulmiyey darteed baa waxay u samaynayaan qaladaad kala duwan bay ugu dhacayaan. haddii lagu dulmiyey oo xuquuqdaadii la dulmiyey oo yacni waxa weeyaan sida aad rabtay waxay noqon waayeen, macnaheedu ma aha in aad adiguna markaasi samayso wixii lagugu sameeyey wax la mida. diinteennu marka waxay ku faraysaa inaad dee wanaagsanaatay ku faraysaa, oo haddii markaasi dadka kan la liida aad noqotay dee kan ugu sharafta badan isku arag, kan ugu qiimaha badan isku arag, kan maalinta qiyaamaha jannada ay u sugnaatay isku arag, laakiin ha isku arkin kii markaa adduunka lagu liiday, maadaama la liidayna qaladaad fara badan ku dhacaya oo gangistar noqonaya ee wax dhacaya ee wax dilaya ee wax dulminaya ha noqonin. saasay diinteennu ku faraysaa, xikmadduna sidaasay kulansanaysaa. waxaan arkaynaa maanta dumar xil bay hayaan la leeyahay oo haddana bulshada kala kaxaynaya oo bulshada isku diraya ayagoo dhahaya qabiil baan difaacaynaa la dulmiyey. ayagii yacni qabiilka difaacayay yaa haddana waxay samaynayaan oo qabiilkii waa la dulmiye ay leeyihiin waan difaacaynaa haddana ay leeyihiin, yaa haddana waxay samaynayaan in ay dulmi kale ku kacayaan, gardarro kale inay ku kacayaan, oo waxay leedahay maadaamana la dulmiyey, maadaama xuquuqdayni la hoos la mariyey, maadaama dee laangaab nagula tilmaamay, kuwaa sidaa yeelayaba ayagu waxay sameeyeen waxbay hore u soo dhaceen, waxbay hore u soo dileen, waxbay hore u soo qarbudeen, sidaasay laandheero ku noqdeene annaguna sidaas aan ka raadino. oo dadkeediibay waxay faraysaa, waa dadkii iyadu dhegaysanayey oo doortay ee yacni waxa weeyaan inay wanaag kula hadasho dabcan ka sugayey, yaa waxay kula hadashay hadal markaasi dhiiggoodii kicinaya, hadal laga yaabo kan markaasi aqli magaradka ah ku kalifi kara inuu wax dhiiggii daadiyo, inuu wax dhaco iyo inuu wax dilaba ku kalifayso asagoo raadinaya laandheeranimo. marka waxaan leeyahay ilaahay ka baq. nebiga siduu sheegay dumar yacni xil loo dhiibtay ma liibaaniyaan oo liibaan ma gaarsiiyaan qoomkii xilka u dhiibtay. marka saa daraaddeed maxaa loo baahnaa inaad tidhaahdo, waxaa loo baahnaa inaad tidhaahdo yacni waxa weeyaan yaynan idinku kalifin xuquuqdiina lidinka soo daahiyey iyo sida yacni waxa weeyaan lidin galay iyo sida lidinku tilmaamayo iyo waxyaabaha lidinku tilmaamayo yaysan idinku bixinin inaad darteed wax u dishaan, qabiil iyo qabyaalo dartii inaad wax u dishaan, qabiil iyo qabyaalo dartii inaad wax u dhacdaan, qabiil iyo qabyaalo dartii inaad wax u dulmisaan, yaysan idinku kalifin bay ahayd inaad tidhaahdo. laakiin ma ahayn inaad tidhaahdo ha dagaalama oo wax laaya oo wax baabi'iya oo wax dhaca. saasay leedahay, miidiyahay soo istaagaysaa, gole dhan bay dhexdiisa ka hadlaysaa, markaasaa waxay leedahay maadaama laydin dulmiyey oo xuquuqdiinnii la dafiray oo xuquuqdiinnii la kala qaatay, dadka idin dulmiyeyba ayagu waxay ahaayeen kuwa tuuga ah oo wax dhaca oo wax masuqmaasuqeeya oo wax qarbudee, idinkuna hadda wax qarbuda si aad u liibaantaan. ma wax qarbudaad baa lagu liibaanaa? ma dhac baa lagu liibaanaa? ma dhiig la daadiyaa lagu liibaanaayo laandheeranimo lagu gaaraa? marka heer laandheeranimo aad raadinaysaan adduunyo ka raadinaysaan yaysan idinku kalifin inaad dembiye kala urursataan.
idinkoon laandheernimo raadinayo ma helaysaan laandheernimada aad raadinaysaan haddiiba aad waddo qaldan ku raadinaysaan. laandheernimo ilaahay agtiisaa laga helaa. kan alle ka cabsado wey midka laandheeraha ah, kan alle ka cabsado wey, kan daciifka ah wey, kan isdaciifiyo wey, kan isdhuldhigo waaye, kan marka la dulmiyo isdhuldhigo waaye, oo aan noqonin kan wax dila ee noqdo kan la dilo. oo nabigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, ma idiin sheegaa ahlu jannaha kullu daciifin mutadacaf low aqsama cala allaahi la abara. ma idiin sheegaayo wax ma idinka sheegaa ahlu jannaha waa mid kastoo daciifa ee la daciifsado, waa mid kastoo daciifa. bulshadana way daciifsadaanoo waxay yidhahdeen kani waa laangaabkii, kani waxuu ka dhashay qabiil yar buu ka dhashay, waa kay yidhaahdaan kaa weye midka ahlu jannaha buu nabiga leeyahy salawatu rabbi wasalaamu caleyh. macnaheedu waxa weeye ilaahay agtiisa waxaad ka leedahay mansilo iyo waxaad ka leedahay darajo saraysa haddii maanta aadan ku milmin fitanka socda, dhibaatooyinka socda. maanta soomaalidu geed dheer iyo geed gaaban waxay u koraysaa, waa soomaalida qaar geed dheer iyo geed gaaban bay waxay u korayaan si un loo yidhaahdo maalin waa laandheeraata, si un loo yidhaahdo baa wuxuu u korayaa geed dheer iyo geed gaaban. hadduu rabo waxbuu u dili, hadduu rabo waxbuu u dhaawici, hadduu rabo waxbuu u dhici, yacnii wax kastuu sama, hadduu rabo waxbuu kufsan si loo yidhaahdo hebel waa laandheere. taa iyadana wax soconaya ma aha, wax wanaagsan ma aha, wax sharci ah ma aha, wax caqligu uu kuransanayo koobsanayana ma aha. iska ilaaliyaan lee. isdhuldhigidda walaalayaal ma keenayso daciiftinimo iyo laangaabnimo ma keenayso, ee cizi iyo sharaf bay keenaysaa. ee dadkaaga kuwaani oo ku dheh isdhuldhiga, sidaad ahaan jirteen si ka badan noqda. ha noqonina kuwa idinku wax dila, ha noqonine kuwa la dilo noqda. kan wax dhaca ha noqonine kan la dhaco noqo. kan wax kufsada ha noqonine kan la kufsanayo noqo. saasay xikmaddu saxdaa keenaysaa, sidaasay diinku saxdaa keenaya. laakiin maa inaad tidhaahdo qoomkaygow tolkaygow laandheeranimo aan helne, aan wax dilno, aan wax dhacno, aan wax kufsanno, aan wax qorbadno, inaad saas tidhaahdo dad dhan aad ula soo istaagto hortooda waxay kugu tahay sharaf darro ayay kugu tahay. waxaan rajaynayaa inaad ilaahay uga toobad keeni doonto subxaana wa tacaala. nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, ina arifqa laa yakuunu fii shayin ila zana walaa yunzacu min shayin ila shaana. nebigu wuxuu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayhi, isdhuldhigidda iyo yani waxa weyaan isdaciifintu ma keenayso oo shay lama dhexgeliyo ilaa way qurxisaa. qof lama siiyo isdhuldhigid ilaa wuu qurux badnaanayaa. qof qaaliya buu ilahay agtiisa subxaana wa tacaala ka ahaanaya. marka adigu un wanaagga iyo khayrka ka raadi, laandheernimada ka raadi ilaahay agtiisa. bini aadam hal mar iyo laba mar ku yidhi waan laandheeraa tahay, waxba kuusoo kordhimayso. nebigeennu markay fitanku dhacaan aakhiru zamaankana la gaaro ma dhihin dagaalama, mana dhihin ruuxa noqo mid wax baabi'iya, ee wuxuu nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yidhi noqo kan la dilaya noqo. marba hadday fitanku dhacaan, ay xaaladdu xumaato, ay xaaladdu isu qasanto, oo dadkii yacni waxa weeyaan ay noqdaan mid dhiigga daadiya iyo kan laga daadiyo ay noqdaan, yacni adigu noqo kan la dilo ee ha noqonin midka wax dila. fitnadaasi ha ka qayb qaadan buu leeyahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. yaa khaalid inamaa satakuunu bacdii axdaaثun wa fitanun waاkhtilaafun fain istadacta an takuuna cabdallaahi almaqtuul lalqaatil fafcal. nebigu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, khaalidow gadaashay waxaa imaan doono axdaas, dhacdooyin, fitanaa imaan doono, khilaafaad iyo iska hor imaad baa imaan doona. ee haddaad awooddo inaad noqoto caddoonkii yacni waxa weeyaan la dilayey, kii la dilayay haddaad awooddo inaad noqoto oodan noqonin kan qaatilka oo wax dilaye, fafcal buu yidhi, saas samee. macnaha ha noqonin adiga kii wax dilayey, ha noqonin kii wax baabi'inayey, ha noqonin kii wax dhacayey, ha noqonin, ee adigu noqo kan la dilayey, kan la dhacayey, kan xuquuqdiisa la qaadanayey, kan la dafirayey xaaladiisu, yacni saas noqo buu yidhi nabi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. miisaanka shareecadu waa inaan wax ku miisaannaa waaya. sharcigu kan laangaabka wuxuu u yaqaanaa midka isdhuldhiga maskiinka ah, kan la daciifsado maskiinka ah, kan la dhaco miskiinka ah, kan la dilo maskiinka ah, kan isliido isdhuldhiga, kaasuu sharcigu u yaqaanaa laandheere. idinkuse maxaa u taqaaniin laandheera?
kan wax dila miya kan wax dhaca miya kan wax burburiye miya haa laandheeruhu saas ma aha laandheeruhu xaalkiisu sidaa ma aha nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalin maalmaha ka mid a yaa waxaa la soo marsiiyey nin baa jidka soo maray markaasuu saxaabada weydiiyey wuxuu yidhi maa ra'yukum fii haada kan maxaad ka leedihiin buu yidhi markaasaa waxay yidhaahdeen ninkani waa nin dadka la sharfo min ashraafi innaas dadka kuwooda ay sharfaan yuu ka mid yahay kan hadduu naag naga soo doontana waan siinaa bal hadduu shafeeco naga dalbana waan u ergeynaa saasay yidhahdeen nin kale haddana soo maray baa wuxuu yidhi nebigu maa ra'yukum kanna maxaad leedihiin buu yidhi markaasuu waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow kan wuxuu ka mid yahay dadka fuqarada ah min fuqaraa'i almuslimiin fuqarada muslimiinta ayuu ka mid yahay rasuulka ilaahayow yacnii ninkani hadduu wax soo doono lama siiyo agteenna wuxuu ka yahay dee nin iska noocaasoo kaleenta waa midka allaangaabku dhahdaan hadduu wax naga soo doono ma siino macnaha cabirkooda yacni saxdaa sidaa ma aha laakiin bulshadu ay ku dhex nool yihiin yay xaaladooda wax ka tilmaamayaan saxaabada nebigeennu ee ayagu dhaqankoodu sidaa ma ahayn macnaha dadka yacni marka loo eego dadka waa qof yacni iska faqiir ah oo hadduu wax soo doontana aan waxba la siinaynin waay hadduu shafaaco dalbo iyo ergo uu dalbana aan loo shafeecaynin waayo bay yidhahdeen markaasuu nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal u fiirso qiyaaska shareecada iyo qiyaaska yacni insaanka dadka intiisa kale qiyaaskooda iyo qiyaaska shareecada bal u fiirso nebiga ninkii saas la dhahaya oo waa faqiir oo wax hadduu soo doonta lama siiyo oo waa laangaab bulshada dhexdeeda marka loo fiiriyo ninkii sidaa la dhahaya bay shareecadu maxay ku miisaantay mataqaanaa haadaa khayrun min mil'i alardi mila haada nebigu wuxuu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayhi haadaa khayrun min mil'i alardi buu yidhi kan dhulka muggiisa yuu ka khayr badan yahay dhulka muggiis yuu ka khayr badan yahay yacnii ninkanoo kaleento wuxuu ka khayr badan yahay dhulka iyo waxa ku dhex sugan bal u fiirso ilahay xaggiisa marka loo fiiriyo waa kan la liidayo oo la daciifsanayo oo hoos loo dhigayo oo bulshadu daciifsanayso oo langaabka lagu tilmaamayo kaasuu nebigu ku tilmaamaya inuu yahay haadaa khayrun min mil'i alardi mila haada kanoo kale dhulka muggeeda yuu ka khayr badan yahay buuri nabi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh marka walaalayaal waxaa la doonayaa maadaama aad tahay dee qof muslim ah miisaankaaga caqligaaga qaabkaad kelimadda u cabirayso qaabkaad wax u qiimaynayso inay noqdaan qaabkii ay saxaabada iyo nebigeennu iyo shareecadeennu islaamka iyo allah subxaanahu watacaala qaabku wax u qiimaynayo wax u qiimeeya qaabka maskaxdiinnu idiin sheegayso waa qaab shayddaan la socdo waay shayddaan baa idinkugu kaalmaynayo inuu markaasi idin yidhaahdo kii wax burburinaya baa laangaab ah kii wax islaaxinayana laandheero waay balufis kii wax burburinaya yaa laandheero dheh kii wax yacni islaaxinaya wanaajinayana waa laangaab marka sidaa xaaladdu ma aha midka wax islaaxinaya ee wanaajinaya oo nabadoonka ah oo yacni wax weeyaan ahlu khayrka ah oon waxba dilin oo asig un la dilo oo la daciifsado oo laangaab waa la yidhaahdo kaasaa ilaahay agtiisa laandheero ka ahee sidaa u ogaada kan wax burburiyana ilaahay agtiisa waa ka liitaa maxaa yeelay naf mu'mina oo la dilo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka jecel yahay inay adduunka oo dhan uu zuulo uu tago adduunkaoo dhan oo tago ilaahay wuxuu ka jecel yahay subxaanahu wa tacaala uu ka necab yahay dheh in ruux muslima la dilo la zawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli rajulin muslim